aniga kulliga khibradeyda markaan kaga warramo intaan ka qayb galay ama aan qayb ka ahaa dib u heshiisiinta 10 sano ka hor waxay ahayd anigoo bil prime minister ahaa yaa gaalkacyo waxaa ka dhacay maxaan ku raahdaa galmudugtii hore iyo xibin iyo xeeb yaa isku hub qaatay dib baa dhacay dadaan waxba galabsan yaa la laayay arrin ka sii horeysana waa jirtay oo hore loogu dul qaatay markaan anigu waxaan aaminsan xitaa markaasay dadka ka hub badnaayeen waqtiga hadda la joogo waxay isu diyaarsadeen ciidamo aad u fara badan hadduu dagaalkaas dhici lahaana waa lagu baabi'i lahaa si aad iyo aad yaa loogu baabi'i lahaa maxaa yeelay temperatureka xaaladdu meesha maraysay meel aad u xun ayay ahayd waxaan soo dirnay guddi yaan soo dirnay guddigaasna runtii wuxuu ahaa guddi ugu horreeyey ee arrintaasoo kala dhacda loo soo diro oo dadka dhexdhexaadiya guddigii shaqo fiican bay qabteen ajri xasanad allah ka siiyo waxaa caawiyey labadii madaxweyne xibin iyo xeeb iyo galmudugtii hore yaa caawiyey arrintii waa la soo afjaray dhaqaalo badanna waa ku bixinay si xaaladii dhibkii loo yareeyo ilaahay waa nagu guuleeyey isla markaas bilo ka bacdi waxaa dhacay galmudugtii hore iyo puntland iyo haddana isku dhuftay xoogaa way iska laayeen iyagoo isu hub aruursanayay yaan haddana guddigii mid lamid ah yaan haddana soo dirnay guddigaasi sidaasoo kale u shaqeeyey labadii beelood ee waalaha ahaa ee meeshaas deganaa ilaahay waa kala baajiyey dhib ma dhicin inkastoo dee dhibab kale uu dhici doono kadib laakiin markaasi xamaasadda siday ahayd iyo xaaladda siday ahayd waa ka degtay halkaasna waxaa ka yimid dib u heshiisiin iyo dadka in la walaalayo waxa igu soo xigtay marka socdaalkaygii halkan aan ku imid oo aad halkan igu soo dhaweyseen oo ahaa socdaalkii dheeraa ee dib u heshiisiinta oo aan dib ugu noqonnay meeshii aan kasoo bilaabnay oo ahayd gaalkacyo oo kala xirnayd oo labada shacab oo waalaha ah aanan soo gudbaynin biyaha xitaa aysan kala qaadanayn eriyada u dhowna ay tahay eriyada aan la deganayn oo guryuhu burbursan yihiin meeshaasna waxaa ahaan jirta suuqii faras magaalaha ahaa ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan odayaal u sameyno 60 ah dib u heshiisiin u sameyno khayr allah siiye taliyahaygii markaas ciidanka xoogga gorod yaa meeshaas wuxuu joogay muddo 2 bilood iyo bar ah yuu joogay oo ka shaqeynayay sidii dadkaas waalaha uu walaaleyn lahaa dhagaxdii xunxunka ah dadka kala hayay waa laga qaaday ilaa hadda dadkii sidii waala u yihiin oo dhibaato kama dhicin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dhibaatada ka ilaaliyo dadkaas waalaha caabud waa oon ognahay magaalo maxaan ku rahdaa kortay oo runtii population badan u degan yahay intii dagaalka sokeeye ka dhacay oo kala xirnayd oo 4 qaybood u kala xirnayd muddo 7 sano ah inaan tagnay oo iyagana aan odayaal guddi aan u sameynay maalintii laga bilaabo ilaa haddana waxba kama dhicin alxamdulilah dadkiina waa isku furmeen waa wada nool yihiin dabka iyo waa kala qaataan iyo sokorta iyo cusbada iyo waa kala adeegtaan ilaahayna waxaan uga baryaynaa nabaddaas inuu u ziyaadiyo xeraale alxamdulilah waa bilownay laakiin ra-iisul wasaaraha soo afjaray insha allah waxaan rajeynaynaa iyada naftigeeda dadka waalaha oo wada degan xeraale oo waalaha iyagoo naftigooda ilaahay sharta ka qaado oo dhib dambe aysan arag dhig dambena uusan ku daadan intaas waxaa dheer magaalada marka oo muddo 30 sano ah lagu dagaalamayo oo laga qaxay oo 2 saf kala ahay inaan iyadana ku guulaysan ilaahay nagu guuleeyey dadkaas waalaha oo halkaas ku dagaalayay muddada dheer inaan isku dhafnay ciidankii dagaalamayay 30 sano oo aan walaalaynay haddana ay nabad tahay ilaahayna ha u ziyaadiyo nabaddaas